Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtiin, saaxiibadana daawanayo. Waxaa joognaa weli deegaanka ceelasha biyaha, meel aad u qurux badan, xaafad yar oo fiican, oo aad u fiican oo jeebkaaga u roon. Waxaa meeshaan ka hayaa maanta aan joogo ujeediin nus boos andhee ruwac boos oo cabirkiisu yahay 10x10. Ruwac waa dhululka aadka u yar laakiin ay dadka danta yar ama dadka oo xoogo dhaqaalaha waayeen ama dadka xoogo xitaa oo ku qanacsan inay ruwac xitaa helaan, dadkaas ayaa aad iyagan loogu faa'iideeyaa. Ruwacan cabirkiisu waa 10x10 afarta koonood, dhulka finti u ahay marka ruwac markuu 10x10 yahay waa dhul macquul ah oo nadiif ah, waa dhulka sida ruwaca xamar oo kale ah. Marka ruwacan ujeediin kaamiradan ku qaban doonaa si aad muuqaalka uga aragtiin. Hadda waxaan ku dhex socdo dhulka waaye, waxaan dhulka ku dhex socdo geedka meesha ku yaal. Hadda ujeedin geedkan oo hadda kaamiradan ku haayo ayaa waxaa ruwacan waa ruwac qiimihiisu yahay 5,500. waana dhul aad ku xiisa gelinayo. Meesha hadda geedka ku yaalo waaye, cabirkiisuna waa 10x10. Magaaladan wuxuu jiraa ilaa 2 kiiloomitir oo ceelasha biyaha ilaa suuqa ilaa laamiga. Sida ujeeda guryahana kasoo horjeedo, waana dhul macquul ah. Qaarkood ruwacyo waaye u badan yihiin sababtoo qofka markuu wax haysanin oo qaataa. Ruwacan hadda geedka ku dhex yaalo iyo ruwacan kale isku dhignaayeen, kan waa la gatay, kana hadda ku yaalo. Kan hadda ujeedo dhisan ganjeelka yar ka dhisan maahane, kan ku dhagan waaye. Qiimihiisuna waa 5,500 waaye, waana dhul macquul ah oo nadiif ah. Marka waxaan is dhahay asxaabta bal waxyaalaha yaryarootiga xitaa bal ugu faa'iideey. Ruwac xitaa naftirkiisa la'aan dhaantaa haddii aad wax wayso. Ruwaca waa 3 qol iyo 2 musqul iyo jikadiisa iyo stoorkiisa ka soo baxay. Waxaa loogu talagalay gaar ahaan oo kale dadka family ah ama dadka hadda aroos oo kale aan weli wax isku dhalin, ama dadka labada ilmo ama hal cunug haysto oo kale oo hadda isku cusub nolosha, dadkaas oo kaleeto iyo ay ka faa'iideystaan ruwacyada sababtoo ah waa nolosha bilowgeed waaye sida waxa lagu arko. Marka waa mahadsantihiin. Wadadiisana wadadan waaye. Ruwacaas waxaa lagu rabaa 5,500, waana dhul macquul ah oo nadiif ah. Wadadan uu leeyahay, wadadan waa wadada ka imaato waaye dhinacan waxay ka imaataa jayga Rumudoorale ay ka imaataa. Waana dhul macquul ah ilaa 2 kiiloomitir u jira jayga ilaa laamiga suuqa. Qiimihiisana 5,500 lagu rabaa, waana dhul nadiif ah oo kaala aragay. Marka waxaan leeyahay wixii kale oo warbixin u baahatiin lambarkayga shaashada saaraya, macluumaad kalena diyaar aan ahay. Isla dhulkan isaga waa eeriyadan ku yaalaa, waana dhul macquul ah oo nadiif ah. Waxaana lagu rabaa 5,500, waana ruwac boos. Ruwacyadana waa kuwa hadda la dego waaye 10x10 waaye, afarta koon 10x10 uu leeyahay. Marka waa mahadsantihiin. Insha Allah waxay noo balanaa muuqaalka kala xigo. Wixii kale oo macluumaad ah waani ila soo hadlaysiin. Qofka markuu muuqaalka daawado wuxuu u baahan yahay si uu macluumaad kale u helo. Dhulkan le waaye, guryahan gadaashooda waaye. Ruwac ka arkaysiin geed ku yaalo waaye oo macquulka ah oo nadiifka ah. Xitaa masaajid waa muuqaalka meesha ka bilaabana masaajidkaas uu dhow yahay. Waana dhul okay ah oo nadiif ah oo xumeyn waaye. Marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta.